wararka naga soo gaaraya galbeedka gobolka Hiiraan ayaa ku waramaya in hawlgal xoogan oo lagu baacsanayo kooxda al-shabaab uu maanta halkaasi ka dhacay. hawlgalkan waxaa iska kaashanaya ciidanka daraawiishta maamul goboleedka Hirshabelle iyo dadka deegaanka ee Macbusleyda. sargaal sare oo ka tirsan ciidanka daraawiishta maamul goboleedka Hirshabelle oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in maleeshiyaadkiisa halkaas soo weeraray ay intooda badan halkaasi ku laayeen isla markaana ay kaga furteen hub fara badan. saacadii la soo dhaafay ayaa galbeedka gobolka Hiiraan gaar ahaan dhulka hawdka waxaa ka socday dagaal aad u qaraar kaas oo la isku adeegsaday hubka nabiyiisa kala duwan. waxaana dagaalkaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray dhinacyadii halkaasi ku dagaalamayay. halkan ayaa imaanaya kadib markii maalmo kadib madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabelle Cali Guudlaaw uu ku dhawaaqay inuu dhawaan bilaabo doono hawlgal ka dhan ah kooxda al-shabaab oo dhawaan ka bilaabo doona deegaanada Hirshabelle. wixii warar ku soo kordhay hadda wadayaal halkan ayaa kala socon doontaan dabcan page-kan Leaderman soo follow gare iyo page-keena kale ee Daar Abshir Xasan iyo sidoo kale channel YouTube-keena dhambalka dunida bartana Twitter ama X iyo bartana TikTok aad ayuu maasanta daawada.